sanadkani galbaday ee 2016 ayaa xasuus iyo mahadho ku reebay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo sanadkani lagu xasuusan doono maalmihii ugu mudnaa haddaba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ka dhacay dhacdooyin aan hore lagu arag kuwaas oo saameyn weyn ku reebay ilaha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba dhacdooyinkii ugu mudnaa ee ka dhacay magaalada Burco ayaa waxa ugu muhiimsanaa khilaafkii muranka badan dhaliyay ee golaha deegaanka degmada Burco taasi oo sababtay inay magaalada Burco yeelato maalin iyo habeen laba maayir kuwaasi oo fajac siyaasadeed ku abuuray bulshada ku dhaqan Somaliland sidoo kale waxay dhacdadani noqotay mid laga hadalhayo inta badan dhulka lagaga hadlo afka Soomaaliga waxaan halkan ka ballan qaadayaa inuu ku shaqeyn doono siyaasadda dawladda Axmed Maxamuud Siilaan oo dalka wax weyn oo aan hore loogu qabtay waxaan ugu sii mahadnaqayaa ugu dambeysay heshiiskii uu ka soo galay Imaaraadka Carabta waxaan halkan dadweynaha reer Burco uga sheegayaa ugu ballan qaadayaa inaan u kala faalinaynin inaan isku faalin doono ay tawashadii ka hadlaan laakiin tan laftigeedu soo kuudku adaaba kugu xuni ay ragga waaweyn waxaan jirin markay idaacada ka sheegaan iyagaabay magaxumo ku tahay anugu lafahoodaaba nimanka lafahoodii garaafada gaadhaysa maayarkii baan ridnay waa iska riyo mooyaane anu iyagu waxaan leeyahay war soo noqdoo caradu yay idinla fogaanine raggu waana legdamaa waana kala adkaadaay haddii legdinta as tiraadeen malaa maanta waa laydin legday waxba maaha ninka raganimadiisa waa inuu qaataa guuldarrada sanadkan 2016 ayaa waxay bulshada Burco ku xasuusan doontaa sare u kaca ku yimi bilicda magaalada kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen bulshada iyo ganacsatadu waxaana magaaladani laga hirgeliyay dhismayaal hoteela iyo xarumo ay shirkadaha ugu waaweyn bariga Afrika ay ka hirgeliyeen magaalada Burco waxaana kamid ahaa dhismaha ganacsi ee shirkadda Haas Petroleum ka hirgelisay magaalada Burco kaasi oo noqonaya dhismaha ugu weyn shirkadaasi ku leedahay bariga Afrika wuxuuna sanadkani u muuqday mid soo jeediyay indhaha ganacsatada kuwaasi oo aan markii hore aan mudnaan badan siin jirin gobolkani sanadkan 2016 aynu galbinayna inaga dhamaanaya waxaan oran karaa magaaladii Burco way fiday sanadkan aad iyo aad bay u balaadhatay hadii ay tahay hudheelo iyo hadii ay tahay wadooyinba waxaan soo qaadan karaa hadaanu dawladda hoose aanu nahay wadooyin aad u bilicsan oo tayo leh ayaan sanadkan 2016 kan ku soo kordhinay oo ay ka mid tahay wadadan aynu taaganahay ee October oo runtii wax weyn ku soo kordhisay magaalada Burco haday bilic tahay iyo hadii ay tayo tahayba waxa kale oo aan iyadana aynu ku soo kordhinay wadada Sayladda sidoo kale sanadkani ayaa waxa lagu xasuusan doonaa hoos u dhac balaaran oo ku yimi ganacsiga taasi oo ay sabab u tahay abaarta baasan ee ku dhufatay gobolka Togdheer iyo gobolada bariga Somaliland waxaa haawanaya Sayladii ugu weyneed bariga Afrika halkaasi oo ahayd xarunta ganacsi ee lagu kala iibsado xoolaha ugu badan ee Soomaalida iyadoo aad halkaasi ka dareemayso inay jirto abaar baasan oo saameysay nolosha dad iyo dunyo xoolaha iyaga way madhayeen xaruuraha iyaga haraad bay baqteeyeen iyo macaluul mahadooyinka ka dhacay magaalada Burco ee saameynta ku reebay bulshada ku hadasha afka Soomaaliga ayaa waxa kamid ahaa mucjisada ku dhacday qoys degan magaalada Burco kadib markii ay isbedeshay qoodkii ay ku noolaayeen iyo waliba biyihii cabi jireen dadkaasi arintan oo ka fajicisay bulshada Soomaalida ayaa waxay isugu yimi inta badan wadaadada Soomaalida si loo ogaado waxa sababaya in biyahan iyo cuntooyinku ay isbedelaan waxayna markii dambe ku sifeeyeen arintani inay tahay sixir laba bilood hooyaday bay biyuhu wax loogu dareeyay marka cuntada waan qubaynay markasta manaan soo bandhigin saddex casho ayaa markaas aan loogu dhigayay ilaa iyo shalay iyo daraad markii aan adkeysan kari weynay bahanti biyaana looga dhacay dhergi dabkana looga dhacay laxooxdina looga dhacay shaahina looga dhacay ayaan culimada warqad qoranay dabadna masaajidadaan u bandhignay ilaahay baan ka baryeynaa in ilaahay naga saaro oo insha Allah ilaahay ka boqso si kastaba ha ahaatee isbedelka ka dhacay magaalada Burco sanadkani dhamaaday ee 2016 ayaa waxyaabo badan kaga duwan sanadkii hore marka loo eego horumarka iyo sare u kaca bilicda magaalada iyo waxbarashada oo sanadkani ay hormuud u ahaayeen guud ahaanba waxbarashada Somaliland iskuulada ku yaala magaaladani Burco Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer